بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه مدن مروين يا مدنيال مسؤولينتي هراء الصومالية رئيس الوزراء إيو رئيس برلمان إيو رئيس الوزراء كحيجين إيو دمانتي السلام عليكم ورحمة الله. هذا اللي يقدم يو ضدك يو ريبة وضقاته بلوان سكودي إن ير كوبو شعورتين أنا أن بل سو أورورينو أو أن تلمانو مالين تاني مالين وين نوتهاي مالين حسوسات أي نوتهاي مالين جعيلك إيو كالجعلك اللي يسوق بنا أنكو عبير إنه تهاي أيان دونيا إنان كوسو كوبو محايا لي إن بدن بعد فردين ماشى waxaan loo baahan yahay in dadku aanan lagu dibin hadalka hadii maskaxda ba kolkay ay meel joogto waxay oranaysaa ma qaadi kara hadii to walka meel laga baxay oo bila natiijo la baxay in la noqdana ma fiicna sida daradeed shalay haddaan dib u milicsano in yar waxba ahayn hortayba la wada yidhi وجوشان أنفردينو يا أراوس كان جيماني بنان وين بوها تلادي واجا لو فريستينا إن حسكيد هينانا سدا وأكيد صور كابيله غير جيبوتي مركي أي لهدين أدو قبو هاوش ودنكا يان إسويديني dhibaatooyin kasta oo aan qabno walaalkii naga weynaa ee abaalka nagu lahaa ee maalintii uu gaalku neeriyanayay wixii aan u baahnayn oo dhan ee halganku u baahnaa oo dhan nala garab joogay arrimaha yani qaramada midoobay marka la joogana difaacayay inaanan gobonnimo meeshani ayna heli karin dadkii iyo dawladdii baan nidhi waa sidee waa kan gaalkii aan iska saarnay maxaan qabanaynaa bay su-aashu timiday waxaan qabanaynaayba ma jiro haddii wixii aan dad ku tiirsanayn een lahayn tallaabooyinka u horreeya haynila qaadaan oo aan lahayna waa kanoo 10 sannadood bay horta 1991kiiba waan bilownay 1991kii bilowgii aan bilownay iyo wixii ka dambeeyayba 10 sannadood ayaa loo diiday fadhiba ummadda Soomaaliyeed maalin walba meel ha loo guuro maalin walba in ha la dilo maalin walba yani anagoo dadka sidaa hayna waxaan deesniri maxaad laga sheekeynaya horta waa inaan u dadaalno oon ka kicina meeshan lagu riday godkan lagu riday Soomaaliya in laga kiciyo oo la abaaro oo laga celiyo oo adduunka loo qayliyo itaalaan haynay ma jire laakiin ilaahay mahadi deelada 10 jirsatay ee hore iyo dabaq iyo محل مال قبته تونا لهين دجالكي أهلي جها بربر كي الدولة نمد الصومالية وحوها مد أي دنيدو كأنفريرت وضع والبلغة دريمي ده الذي أنسكو داي نبضة طبعا كاسنا دوت كهر كبلا مي ويجمن لقوم الدوجين دولة نمو لقوم يقللين waxaan noo soo baxday marka inaan hawsha galno ma dunida damiir beeshay ma Soomaalida wanaagii ka dhamaaday
مدرسكا إسكا isku dayay fara badan oo ilaa 16 jeer lagu sheegay dabadeed ka daalay oo dib uga joogsaday wada weydeen inaan had iyo habeen golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay bishii September sanadkii 2000 si aan u toosino damiirka beesha caalamka una tusno halista dunida uga iman karta fawdad iyo dagaalka ahliga ee Soomaaliya ka socda wala nala yaabay xasuus baan u leenahay sidaasi waxaan kala kulanay aqbal iyo balanqaadka in la taageero hawsha dib u dhiska ee Soomaaliya waxa halka yani aan xusayna xogayihii guud ee qaramada midoobay Kofi Annan inuu nagu lahaa abaal weyn nagu lahaa ambassadorkeena Allah yarxamo roob la col hayana waxa uu dadaal weyn ayuu ku jiray oo arrinka halka kolkuu gaarsiiyay albaabadan ayaa la noo furay dadka aan shirki ugu yeedhnay Soomaalidu si fiican bay u soo gashay si fiican bay noola shaqaysay dhaxdeena kolkaan isku kiindeynay isqabqabsateena waan idin dhaxgalaynay kolka aan karaynana waan hagaajinaynay marka kalena waagaan u bariinaynay kolka dadkii dhaqaaq ay yiraahdaan ay waaban tagaynaba meeshan wala nagu gumaaday anaga iyo wala naga eexday iyo wala nakani waa ka dareeraynaaba shandadaha qaataan ka daba tagado soo qaba hadana soo cili waxba ma karno waxba ma doono may lama soconayo halkan waan askar baan u sheegno ma baxaysiinay fadhiyo gaadha natiijo gaadha tala keena dhulkiinii uu ni baahan yahay kolka dee waxaan nidhi maxay hayday gogol xaad tilmaaman turxaan bixin godob sheegaso iyo ka garaabis cabashooyin iyo calool xaadasho cafis iyo caafimaad guud waxaan uga baahnay gacan shisheeye iyo sixir wax u sheega intaba dhudhub kasta ay gasho waan dhirinay inta dabadeed ergaa la xulay weerar xeerar baa la sameeyay kolkaas dastuur ku meel gaadha sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh iyo dawlad dhammaystiran lagu dhawaaqay waa loo dabaaldegay dunidana waa la maqashiyay dib baa loo noqonayaa waabaa bariyay bilicsan arooriyo baxsan baa leeyahay madaxweynihii maalinta la doortay mudane cabdiqaasim salaad xasan oo mushkilada caafimaad ay la kulmeen oo da'diina way jirtay aad baan ugu farxnay fariintiisii waxa uu na tusay in ma garanaysaa inkastoo isagu kari waayay inuu yimaado haddana codkiisii in la maqlo talo wuxuu hayay iyo dardaaran wixii uu hayay intaba inuu noo soo gudbiyey aad baan uga mahadnaqaynaa shirweynaha nabadda ee Carta waxay nagu waajibay inaan isweydiino ma laga guun gaadhay himilooyinkii aan ka lahayn haa waan oran karnaa kolkaan ka eegno haykalka guud ee dawladnimo oo dhammaystiran
xidhiidhka caalamiga ah shalay waxay joogtay kursigeygii Soomaaliya oo golaha loo dhan yahay maanta se meel ka sii sareysa ayay joogtaa oo waxay ka talisaa amniga caalamka iyada oo Afrika ku metelaysa dawladaha tirada kooban ee ka arinsada ammaanka qaramada midoobay wax si fudud ku yimid ma aha waanad ogtihiin inta hawl loo soo maray intaas oo ma aha ee Soomaaliya waxay noqotay xubin firfircoon oo xiriirka adduunka saameyn weyn ku leh dunidana kalsoonidii xanaanaysa maalinba maalinta ka dambaysa ugu dambeyn iyo gunaanad Soomaaliyeed ogaada idinka dhalintaay ogaada idinka mustaqbalka leh idinka ayuu xil idinka saaran yahay sidaad nabad iyo barwaaqo ugu noolaan lahaydeen qaladkii aabbayaashiin galeen iyo godobihii qabiilka aad ka dhaxalsheen kadib kadbaday inay caqabad idinkaga noqon waayaha ifaya uu sheegay madaxweyne xasan fikira oo aad u fikira timaadada aad ka mas'uul tihiin wanaag waxaan lahayn annagu waan ku darsanaynaa daraasad hadday tahay wixii qalad naga dhacay sana waanu marmarsiyo u noqon baaqashadiina Soomaalida qurbaha ee dunida ku baahday idinkana waxaan idin leenahay waxaan idinku bogaadinaynaa sida dunida ula qaybsanaysaan iyo sida uga qayb qaadanaysaan dhismaha dalkiina hooyo waxaan leenahay wixii dibad u baxay wadankooga hadday xasuustaan haddii ay maalgeliyaan haddii ay caruurtooda ku baraan inay qurba tahay meeshan la joogo in loo baahan yahay inay walaaloobaan ayaguna ay wadankooga noloshiisa horumarkiisa mustaqbalkiisa in loo hooyan doono berri toole oo xabaashi halkii ay kugu sugayso in dad aanan xidid balahayn inaan noqono ma fiicno haddii shalay toole aad lahaydeen aan nilaha anigu ii heliya maanta waxaan leeyahay isku heliya wada tashada hil nooc walba leh inaad yeelataan oo aad ka kaaftoontaan talo dad kale in siiyaan dadkiina inaad ku tala gashaan wanaagga in laga shaqeeyo meeshan aan iskugu niminay maanta waxaan doonaynaa inaad kala tagtaan fariin Jabuuti ay nii soo dhiibtay oo wanaag horumar wada tashi iskaashi intaba leh ayaan doonaynaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan bay leedahay dadkeeda baana dhisi kara oo sii dhisi kara oo hore u qaadi kara shisheeye waxba ma hayo intuu wanaag kula doonaya ilaa uu doonaya inaad meelaha aad sadaqadun aad la sugto Soomaalidii oo dhan loo dareeriyo oo la yiraahdo maxaad mashruuc haysaa hay-adii maxay ahayd maalgelinaysa waxaan maanaga u baahan mise inaga u baahan hadaad tirahdana kan waxbuu arkayay waa la iska ka garamay kuwii kale baa lagu tusi oo looranay waryaadeen
وأني كان يقول درجيه مقارنة ساي وحوليه هي أداء الله شقيه وحول العقب ضمبه هلايا وبيكورنيه هل كابا لو ذا جيسان يح نحر كيبا ولا قتاعي ده هرمرك حقوق كيمانية تذكر دول على هايبة هدينا ونحين ومدول بها هدو دلال كقاطع ونسك صعب هدونا الوعاية ولا يقول هذا ملعون باتاي وحنبات سميسي وحنبات حداي وحنبات كنيس مهمته وحويا ذلك مجعش هاي مسمى جعل بس وحكى لي شيء كبير عد وحقوق بني زين مجرى هدي أنا أدوق ذلك يدين تادا أنا هيلين هيل دمبو عد كلي كاجا إيمانيا لما شيء سوماليا هنولاتو جيبوتي هنولاتو ولا النبدين هذا ولاتو وحول قبسجين هنولاتو هرو مركين هنولاتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.